ma lahan wax bangi ah sidoo kale lagama isticmaalo lacagaha caadiga ah waxa kaliya ay halkan lagu kala ganacsado waa BTC ama Bitcoin Bitcoin waxay noqon kartaa lacag sida dahabka ah laakiin ma noqon karto currency waqooyiga Pacifica ee bartamaha America waxa ku yaal magaalo yar ee loo yaqaan El Sonte El Salvador hirarku waxay soo jiidanayaan adduunka oo dhan laakiin muuqaalkan daqiiqado kaamil ah wuxuu qabanayaa hal xaqiiqo ah waxa ku nool 3,000 oo qof El Sonte waa mid ka mid ah meelaha ugu saboolsan dalka laakiin cuntada wadooyinka ayaa caan ka ah cuntada qarankana waxa loo yaqaanaa babusa waxaa lagu kala iibsadaa is walba kaliya $2 oo Mareykan Maria Aguirre waxay aqbashaa lacagta virtualka ah casriga macaamiishu waxay ku bixin karaan Bitcoin cryptocurrency-ga ugu da'da weyn wax yar ayaan ka walwalsanaa in aan aqbalo lacagta Bitcoin sababtoo ah waa lacag virtual ah taasoo aan si weyn loo aqoon laakiin 2 sano ayaa laga joogaa welina waan qaadanaa Bitcoin Bitcoin go'aankii ugu horeeyay ee lacag bixina qiimaha Bitcoin ayaa kor u dhaqaaqay ilaa $60,000 laakiin kadib dhowr bilood gudahooda waxay lumisay in ka badan 3 meelood 2 meel qiimihii hadda Maria iyo 50 kale oo tafaariiqayaal ah kaliya waxay rajayn karaan in isbeddelku uu dib u soo noqdo Bitcoin aragti ahaan waxaa lagu kala bedelan karaa doolarka ama euro waqti kasta dhab ahaantii haysashada lacagta casriga ah halkii aad iska iibin lahayd waxay noqon kartaa khatar sababtoo ah suuqa crypto waa mid aad u kacsan isbedelada muddada gaaban ayaa si joogto ah u dhaca halka qiimaheedu uu hoos u dhici karo ama kor uga kici karo 10% ama ka badan waa khatar qaar ka mid ah tafaariiqlayaasha El Sonte ay rabaan in ay qaataan waxay wax ku bixiyaan oo ay ku ganacsadaan Bitcoin laakiin kriptahooda uma bedelaan dollar waxay rajaynayaan in qiimihiisu uu kor u kaco laakiin dhammaadkii 2022 arrimuhu aad uma fiicnayn saaro ayaa isoo gaaray laakiin waxaan rajaynayaa in aan dhawaan ka soo kabsado tan iyo markaas qiimaha Bitcoin ayaa mar kale kor u kacay mashruuca bulshada Bitcoin ee El Sonte waxaa lagu maalgeliyaa deeqda cryptocurrency mashruucan waxaa loogu talagalay ka hortagga dhalinyarada in ay dambiyada u jeestaan burcadnimada iyo dilka waa qayb laga cabsado nolol maalmeedka El Sonte Hope House wuxuu siiyaa dhalinyarada bulshada dhexdeeda ah ilo dhaqaale si ay u helaan bilow wanaagsan ee dhanka nolosha ah dadaalkan samafalka ah waxa ay bixinayaan koorsooyin waxbarasho iyo fursado shaqo Entonces 2017 ilaa 2018 dad badan ayaa ka joojiyay taageeradooda mashruuca dhibaatooyin kala duwan dartooda laakiin isla markaas waxaa jiray dad cusub oo doonaya inay caawiyaan aqoonsiga deeq bixiyaha ee dhaqaalaha u soo dhiibay George Valenzuela ayaa weli ah mid qarsoon taasi waxaa laga og yahay oo kaliya in qofka uu ku sugan yahay Mareykanka xitaa hindisaha mashruuca aan faa'iido doonka ahayn
ee Bitcoin Beach El Salvador ayaa sheegay in aanu garanaynin cidda ka dambaysa deeqdan. waxaa laga joogaa in ka badan 3 sano tan iyo markii aan bilaabay mashruucan. kuwa ku lugta leh waxay sheegaan in ay yaraadeen dembiyada, in ay hadda ku nool yihiin guryo daboolan ama guryo dadan. Renato Salazar wuxuu gacan ka geystay maalgelinta dhismaha cusub ee Bitcoin isagoo ka wakiil, laakiin hadda qoysaska waxay u baahan yihiin in ay deymaha isaga bixiyaan. sidaad arki karto waa shub adag. 122 guri oo ammaan ah oo degan kuna yaala meel jilicsan, ama 10 guri oo saqaf ah oo loogu talagalay 122 qoys, ma ahan tiro aan macno lahayn marka loo eego ku nool 3,000 oo keliya. xubnaha bulshadan iskuma daraan shubka oo keliya, sidoo kale waxa ay bartaan sida loogala baxo Bitcoin applicationada. akoon banki ma haystaan, ma helaan wax nidaam maaliyadeed ah, barnaamij kasta oo maaliyadeed ma helaan, sida deymaha, ma helaan caymis, ma helaan wax sax ah. waxay ahaan lahayd wax aan macquul ahayn inay guri helaan. El Sonte waxaa loo tixgelinayaa kiis tijaabo ah oo mustaqbalka lacagta. dhib ma laha qofka hantidiisa, qof walbo hal taajir ama faqiir waxay ganacsi ku samayn karaan nidaamka baahsan. dollar ma jiro, banki ma jiro. Bitcoin miyay ka wanaagsan tahay iyo ma tahay lacag nidaam fiican ah? ma bedeli kartaa lacagta caadi? miyay ka caawin kartaa yareynta cadaadiska dadka ugu saboolsan adduunka? waxaa jira dad badan oo saameeya iyo dad badan oo u dooda iyo Bitcoin. ma waxay sidaas u samaynayaan magac cadaaladda dhaqaalaha? machen das, weil sie sababtoo ah waxay isku dayayaan inay adduunka ka dhigaan meel wanaagsan. waxaan si dhab ah u aaminsanahay Bitcoin inay u fiican tahay. run ahaantii waan fahmay doodaas. waxaa jira sababo badan oo sharci ah sababta ay Bitcoin u noqon karto lacag togan.